بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين قالي كسو دواد channel كان فضل هدي أكو عصبتا سبسكرايب نودي هدات هرونو الجوكتان لاك تيشيرتا وادنكينا إن ما انتو حنكهد لدونا إن شاء الله تعالى فائدة أي تميريجا أما هرود قيان ولا يضحي polycystic ovarian syndrome أما PCOS أما بروبيوت كسو بحا وكحان سيدياشا مركا هروداني waxay leedahay faa'iidooyin fara badan aan la soo koobi karin dhan walba dhanka caafimaadka dhankan haddii aan maanta ka eegno insha Allah oo ku daweynta burbiyootka maxay ahayd ka saacidaysaa insha Allah ta'ala hotor waxa weey insulinta ay hoos u dhigaysaa oo hoos ay u dhigaysaa insulinta haddii hoos u dhigtana effect badan ma yeelanayso burbiyootkani sidoo kale PCOS ka waxay kale tumeriga ay ka daaweysaa waa anti inflammatory waaye caabuqa ay la dagaalamtaa fasting waxa keena PCOS ka waa caabuq ama infection ku dhaca ugxan-sidayaasha markaas halkaas uga jeedani caabuq ama infection ku dhaca PCOS ka tumeriga waxay u tahay anti inflammatory oo caabuqa ay la dagaalamtaa mar haddii caabuq la dagaalamtana meesha waxa macquul ah inay meesha ka dhigto meel sideedii hore ku soo laabatay ama caabuq ee ka baxo marka PCOS kana waxay leedahay dhibaatooyin fara badan dadka waxay ku sababtaa infertility ama madhalisnimo Allah naga haya inta maxay tad ubad raadiskan ubad Allah siiyo inta haysatana Allah baariyaal uga dhigo marka faa'iidooyin fara badan ay leedahay tumeriga marka sidoo kale waxay la dagaalamtaa sokorta PCOS kan inta badan waxay sare u qaadaa sokorta jirka oo qofka waxay ku sababaysaa inuu weight gain noqdo oo aad u buurto oo kaleeto qofka ama maxay ahayd aad u dhuubto oo aad qofta u dhuubto marka calaamooyin fara badan way leedahay hadda ka horna channel-kayga waa uga soo hadlay saan rajeynay insha Allah marka huruudda lama soo koobi karo waa qalajiye waa anti inflammatory way insulintan hoos ay u dhigtaa inta badan dadka qaba PCOS ka waxa la siiyaa cirbado insulin ah si hoos ugu dhigto marka adigoo ka maarmi kara cirbadaha waxa isku daaweyn kartaa maxay ahayd tumerigana waxa ka qaadanaysaa 1 gram ayaa ka qaadanaysaa maalintii waxaad ku samaysan kartaa ama caano ayaa ku darsan kartaa qandac ama waxa ku darsan kartaa biyo ayaa ku karsan kartaa sida shaahi oo kaleeto ayaa u karsan kartaa marka faa'iidooyinka huruudda lama soo koobi karo huruuddu waa labo mid dawo ahaan loo isticmaalo iyo mid waxa weeye jirka iyo isqurxinta loo isticmaalo marka midaan waxa weeye mid dawada ahaanta loo isticmaalayo inta badan waxa wanaagsan huruud qoyan oo sida sinjibiisho kale u taalo taas ayaa aad u wanaagsan marka qof walba oo xanuunsan Allah ku caafiyo insha Allah ta'ala saarjeynayna research fara badan ama baaritaan fara badan oo la sameeyay waxa la ogaaday in insulinta hoos u dhigto tumeriga ama huruudda sidoo kale tan ay caabuq la dagaalamto mar haddii caabuq la dagaalamtana meesha waxa macquul ah inuu infectionkii ka baxo infectionka meesha haduu ka dhamaadana waxa macquul ah inay sideedii hore ku soo laabato insha Allah ta'ala gabar kasto la dhiban Allah ka caafiyo inta badan dumarku uu ku dhacaa xilliga dhalmada inta ay ku jiraan ayuu dumarku ku dhacaa qof weyn kuma dhaco inta badan marka gabdhaha xilliga dhalmada ku jiro ayuu ku dhacaa PCOS kaas Allah ka caafiyo intuu haayo inta kale tan Allah kuma sababo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhawaada waxtarka huruudan halkan laguma soo koobi karo gabdho tijaabiye oo ka faa'iideysta insha Allah